an ingiriisku waxa la yiraahdaa articles waxayna ka hormaraa inta badan magacyada mufradka ah. What is starting with vowels take an before them. What is erayada starting with ku bilaabmaya vowels shaqalka. Vowels waxa la yiraahdaa ingiriiska a e I o u. What is starting with vowels take an before them. What is erayada starting with ku bilaabmaya vowels shaqalka take waxay qaataan an before them hortooda. For examples, tusaalooyin. An apple, tufaax. Apple waa magac mufrad ah wuxuuna ku bilaabmaa a oo ah vowels sida awgeed wuxuu qaadanaysaa an elephant maroodi. An owl waxaa la yidhahdaa shimbirka guumayska loo yaqaano. An umbrella dalad. An inkwell waa weelka qadda lagu shubto. What is starting with consonants take a before them. What is erayada starting with ku bilaabmaya consonants shibanayaasha. Shibanayaal waxa weeye marka laga reebo a e I o u inta ka waxa la yiraahdaa shibanayaal sida b c d kuwaas oo kale. Take waxay qaataan a before them. For example, tusaale. A car gaari. Car ku bilaabma c na waa ka mid tahay consonants shibanayaasha. A pork waa book. A man nin. A table miss. Thanks for watching. Fadlan subscribe garee haddaad tahay arday nagu cusub si aad u heshid casharo lamido aad muhiim kuugu ah. Like saar haddaa ka heshay videogan siina share garee.